يدا وقتها قصة عدا مثل وايا حدا labadaasi waxaan hayn hore looga wahayo waa nin iyo waagii waxa wax ka bedeli kara nolosha bulsho amba wadan waa dhalinyaro wadan waxa lafdhabar u amba sidoo kale laxaad waa dhalinyaro kuwaasi oo wax ka bedeli kara hanaanka horusocod ee wadankaasi isla markaana ku ridi kara dhabaa horumarka kuwani waa dhalinta ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay bilaabeen ololo ay ku gurmanayaan dadka ay dhibaatadu haleeshay ee reer beledweyn waxa uu ahaa fikir ka soo burqaday tiro yar oo dhalinyaro ah waxa uu ahaa riyo ay mar u rajeynayeen inay rumowdo dadaal dheer kadib iyo sidoo kale halgan waxay ku guuleysteen inay kaga dhabeeyaan riyadaasina waxay noqotay mid rumowday daawadayaal telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV ayaa ku booqday halkan oo hoyga ay ku ururiyaan qaaraanka ay ka soo ururiyaan dadka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ugu tala galeen dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waqtigan aan la kulanay waxay saarayeen baabuurta si loo geeyo amba loo gaarsiiyo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaan wax ka weydiinay dhalinyaradan goortii ay ku dhalatay fikirkan iyo sidoo kale caqabadihii waaweynaa ee la kulmay intii ay ku jireen hawshani waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxaan u mahadnaqayaa bulshooyinka gobolka Togdheer iyo waxa weeyaan dhalinyarada gobolka Togdheer iyo waxa weeyaan culimada gobolka Togdheer oo runtii hawshan miisaan aad u weyn ka qaatay hawshani waxa weeyaan waa barbilow aanu waxa weeyaan ku iba furaynay caawimada loo geysanayo beledweyn bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhami ay meel walba waxa weeyaan caawimadeeda ka geysanayso gurmadkani wuxuu ahaa gurmad dhalinyaro oo runtii aan ugu tala galay marka wixii anaga awoodayada ah iyo karaankayga aynaanu sameeyno waxyaabo nagu kalifay waxa weeye malagaalada beledweyn waxaanu ogeyn labada wiigayna dhaafay inay masiibo ku habsatay iyadoo iska degan oo aan sida la sheegay roob ka diin marka wax mareed caadiga tahay ayaa hal mar masiibadaas u degtay taa awgeed waxaan naga nakiciye ka dhalinyaro ahaan waxa ku hooy beelay oo dhibaato iyo masiibo ku dhacday dhalinyaro anaga nala mid iyo hooyooyin iyo aabo taa awgeed waxaanu eegnay marka koobaad waxaan nakiciye Soomaalinimo iyo walaalnimo marka labaad waxaan nakiciye muslimnimo marka labaad saddexaad waxaan nakiciye bilaadantinimo intaas waxay noo suurta gelisay damirkaygu nasiin waayay in aanu eegno arrimaha noocan oo kale ah aan gobolka Togdheer iyo dhalinyaradiis alxamdulillah ilaahay ba mahadsan iska leh waxaan maanta soo gabagabeynay gacansiintii gurmadka walaalaha ayaga beledweyne waan ognahay walaalayaal waxaan maanta dhiibaynaa inaanay hayn wax idin kafeynaya ama wax idin tarayaan soo ururinay laakiin waa la dareen ahaan inaan la dareen noqono insha Allah taala anagu beledweyne horta hore ma aan arag waanu arkaynaa oo waanu imanaynaa idinkuna waad noo iman doontaan markasta iyo goob kastana waan idin ducaynaynaa insha Allah in Ilaahay dhibaatada idinka kor qaado rahmatullahi wa barakaatu marka hore Ilaahay baa mahad iska leh Ilaaha khaliqa ee maanta soo gaarsiiyay dhamaadka hawshii aynu labada isbuuc soo wadnay gurmad walaal aynu dareenka kula wadaagaynay walaalaha beledweyne markaan aragnay xaaladda meesha ka taagan iyo dhibaatada meesha ka jirta waxaan u damqanay inaan walaalaha u istaagno wixii aan magaaladii Burco uga heli karno oo sadaqa inaan uga ururno alxamdulillah maantana waa aragtaan gaarigii u horeeyay hordhac waa dawladda Soomaaliland iyaduna gaarkeeda u dhawaaqday wixii dambe intan waa hordhac ay soo gaari doonaan insha Allah taala intana hordhac baanu ka sii dhigaynaa wixii dambena isbuucan ama isbuuca labaad soo socda Somaliland oo isku dhan baa la soo diri doona Somaliland iyo Soomaaliya inkastoo yihiin laba wadan oo siyaasadda isku haya haddana waxaan marnaba indhaha laga qarsan karin dadka ku kala dhaqan labada wadan inay yihiin dad isir wadaaga isla markaasina dhibaatada iyo murugta iyo sidoo kale farxadda qaybsada waana deeqdii horeysay ka timaada xagga iyo Somaliland Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Pro